shirweynihii shanaad ee doorashada xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa dib u howlgelinta xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer oo muddo ka maqnaa saaxadaha isboortiga ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, wasiirka isboortiga ee maamulka Hirshabeelle, gudoomiyaha isboortiga ee gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka tirsan guddiga Olombikada Soomaaliyeed, qaar ka mid ah xiriirada isboorti ee dalka ka jira, qobar isboorti iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay kaaliyaha xogaayihii hore ee xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer Xamse Xaaji Cabdi, kaas oo dhinaca kale ahaa musharax u taagan xilka xogayaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska, wuxuuna ka sheekeeyay taariikhda xiriirkan. run ahaantii xiriirkan tenniska waa xiriir fac dheer oo taariikhdiisa intaan lagu soo koobi karin. xilliga la soo aasaasane waa xiriir taariikh ku leh isboortiska Soomaaliya. haddaan ka soo ambaqaadno xilliyada ugu dambeeyay gudoomiyaal kala duwan soo maray. run ahaantii maantana halkaan ay soo gaarsiiyeen intaasba waa la shaqeynayna. haddana waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno. maanta waxaa u fadhinaa shirweynihii shanaad oo aan ka sugayna inay codkooda na siiyaan. Ibraahim Xuseen Cali Rombe oo ka socday guddiga Olombikada Soomaaliyeed isla markaana ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa madasha ka akhriyay magacyada xubnaha xaq u leh inay wax codeeyaan. waxaan xaadirinayna xubnaha codka bixinaya: Maxamed Bashiir Cali degmada Kaaraan, Mustaf Ibrahim Muuse degmada Shibis, Cabdi Ahmed Culusow degmada Cabdilcaziz, Maxamed Cabdi Shangani, Shariif Maxamed Maxamuud degmada Boondheere, Cabdullaahi Xuseen Cali dugsiga Banaadir Zone, Maxamed Sheekh Cusmaan dugsiga 12 Oktoobar, Anis Cali Maxamuud ururka jaamacadda ee guddiga Olombikada Soomaaliyeed GOS. intaas kadib xubnihii codeynayay oo ka kala socday iskuulada, jaamacadaha iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa si aqlabiyad leh uga codeeyay dhammaan xubnihii musharaxiinta ahaa. Ibraahim Xuseen Cali Rombe oo ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay magacyada iyo xilalka mas'uuliyiinta la doortay. xubnihii doorashada codka lahaa waxay cod buuxa ay ku siiyeen Saacad Cumar Geedi oo ah gudoomiyaha ururka, Cali Cabdullaahi Maxamed gudoomiye ku-xigeen, Anisa Xasan Roble Elizabeth oo gudoomiye ku-xigeen, علي حسين عثمان لبه قدومي كوحجين، أحمد هلولة محمد قدومي كوحجين، كامل عبد العزيز أولو الدين له قدومي كوحجين، حمزة حاجة عبدي حقيقة جود حمناهاس وحي محوها أي هلين ومحوها عدك محوها عد بحياشة أي كتاجر أفريقيا طمن محوها خفنا كعامسي مقاسير درادد guddigaas waa sidaas oo ansax ku yahay xubnihii u horeeyay. xubnaha caadiga Cabdiraxmaan Maxamed Siyaad, Suhaam Maxamed Aadan, Cabdullaahi Xasan Kuusow, Khadra Bashiir, Faa'iza Jaamac Qaalib, Abuukar Cumar Geedi, Maxamuud Maxamed Xasan, Xuseen Maxamed Sheekh, Xabiib Axmed, Xirsi Diiriye Faarax, Zakariya Mucallin Nuur, Mukhtaar Nuur Abuukar, سعيد شامو iyo Dr. Big May. intaas waa xubnihii muxuu ahaa guddiga ururka tenniska dheer. waxaan ay 13 ayaa muxuu ahaa codka siisay, labana way ka aamustay. sidaas ay ansax ku yihiin guddiga guud ahaan guddigii ururka tenniska dheer. kadib doorashada waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha la doortay ee xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer Saacad Cumar Geedi, waxaana kadib xigi doona mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay shirweynaha shanaad ee doorashada xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer. waxaa sharaf noo ah maanta in xiriirka tenniska oo maanta meesha lagu ansixiyay oo muddo badan aan soo shaqeynin oo hadda jecelnahay xiriirka cusub inuu dadargeliyo dugsiyada iyo jaamacadaha iyo degmooyinka hawshan aan ka bilaabano. saa la socotaan guddiga tenniska aan magacaabnay oo la magacaabay
inay yihiin dadkii hore qaranka ahay. waxaan aad ugu faraxsanahay haddii aan nahay ururka jaamacadaha in aan soo dhaweyno ama aan cod siino ururka tenniska dheer. haddana guddiga Olombikada Soomaaliyeed waajibaadka naga saaran waxa waaye inaan xiriiradii wixii ayaga la yimaadaan ama ay dadaalka sameeyaan inaan ku garab siinaa wax kala qabanaa geynana si hadda xiriirka tenniska loo keenay meeshaan oo kale iyo maxfaladaha ayagu ay tagaan doorashooyinkooda waxqabadkooda. marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaano xiriir muddo dheer ugu dambeysay in uu active ahaado oo maanta la soo abaabulay amba doorashadiisa meeshaan ka dhacday xarunta guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo lagu doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenno iyo dhammaan guddiga fulinta ee xiriirka tenniska dheer. anoo ku hadlayo magaca agaasimaha guud ii wakiishay inaan macnaha magaciisa iyo magaca wasaaradba ku hadlo. waxaan hambaliyo leenahay ka wasaarad ahaan guddigan cusub ee boorka laga jafay. kulle mucusba waa odayaashii hogaamin lahaa macnaha horan u hogaamin jiray ayaa meesha lagu doortay. marka boorka jafidaas waxaan leenahay ka wasaarad ahaan waa soo dhaweynaynaa hambaliyana waa leenahay. macalin Saad wax badan aan ka wada hadalnay inuu soo celiyo xiriirka long tenniska waxaan rajeynayaa in ilaahay uu u fududeeyo asaga iyo asxaabtiisa la shaqeynaysa. annagana haddaan nabaada sportska meel kasta aad joogtiin inaan taageerno Saad iyo guddigiisa. xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer oo saaxadaha isboortiga ka maqnaa in ka badan 10 sanadood ayaa xilligan ifafaalo wanaagsan laga muujinaya inuu dib u soo ceshado aqoonsiyadii caalamiga ahaa maadaama ay hogaamin doonaan xogahaye Xamse Xaaji Cabdi iyo gudoomiye Sacad Cumar Geedi oo labadaba ah dad khibrad u leh xilalka loo doortay.